dhalinyarada lab iyo dhadig bale ee baraha bulshada aad uga dagaalamay ee hawsha ka dhiidhiyay ee wacdaraha ka muujiyay ee markaan dhageystay ama aan daba galay qalbigay ku qaboobay aad bar ugu farxay qadiyada in muslimiintu maanta dhalinyaradoodii ay taagan yihiin ninkii nabiga wax ka sheega ama diinkeena dura inay halka la gaaraan dareenka maanta ay qabaan dhalinyaradu muslimiinta lab iyo dhadigba hadduu 75 jiri lahaa culumadani lama laayeen inasiyaad barre dambaarida kuma gowraceen ninka boqorka ama madaxweynuhu ah waa faajir daaqi ah wuxuu qiimeeyaa kolba bulshadu meeshay marayso haddii bulshadu yacad tidhaahdo wuu cabsadaa haddii u hogtaanna wuu dullaystaa xaqiiqa la ogyahay wey arrintaa dhallinyarada baraha bulshada inaan u mahadnaqo waxyaabaha ay u kallifo wey inaan caawa ka hadlo qadiyadda ayada ma jeclayn inaan qadiyaddaas aan soo celceliyo idinkoo igu daalayay kuwa la mida inaan ka hadlay laakiin dareenka ay dhalinyaradu lab iyo dhadigba baraha bulshada ka muujiyeen ee diin jacaylka ah ee danqashada ah ee islaam jacaylka iyo dhiidhiga iyo ficilada diineeda ayaa idanqay oo u kallifay inaan qadiyadda caawa ka hadlo qodobkaasi mahadnaqa dhalinyaradu waa iga mudan yihiin khayr allah ha siiyo duunkada allah ku sugo mar walbo qadiyadda noocaas ay timaadana waxaan ka doonayaa inay ka hadlaan